دوني ماينو تعدي دوني ماينو جوادنا نقاله كجرا kala go'an buu ku jiraa sixir bar buu ku jiraa shidaalkiyo kordhay waxa la sixir bar loo kordhay marka ag haday wax ku fikirayaan si ma garanaysa aqligu ku jiro fikirayaan wax qofku qaadan karo ayaa loola iman la ma diidanin inay muxuu ahaay iyagu shirkad ay yihiin oo muddo badan ay ku soo dhabar adeegayeen muxuu ahaay inay suuqa soo galaan ma garatay haddana wax aqli gala oo inay taxiga watay ku shaqaynayay iyo shirkadii heelade labadaba muxuu aqli gala inay soo dejiyaan ayay ahayd laakiin saa doonaan yeelina ma naqbato muddo 3 sanaaba waxaan ku ri waan ku jirnay iyagoo mid aan ahayn oo aanan baayata midna ahayn ayaan halka soo gaarsiinay oo suuqa soo gelinay xaq baan ku leenay ma fahanti nin waliba heerada xaq buu ku leeyahay taxiga wata buurahan korayeen oo waxaan ku ri wax walaali wax doona muxuu ay magaranaysa dadku ay nasiinayeen iyadoo shidaal qaaliya iyo magaranaysa wadankiyo xaalada ku jira xaquuq baan ku leenay inaan muxuu ahaay shirkada la doodno maxkamadda sare ta hoose degmada mid kastaba hor istaagina albaab kasta hor istaagina si aan u muujino cabashadeeda dhalinyaro konton gaarisa ayaa xidhan ma garatay sababtu waa muxuu ahaay taadiga ay magaranaysa ay muujiyeen yaa isku imaanshaha isku yimaadeen ayaa la yiri si isku timaadaan oo u tustaan shacabka duruufta aad qabtaan ugu yaraan markaad maanta qofkii garanaysa $3 laga qaadaba qofkii marka $3 laga qaado waxa weeye $99 na gaadhigaasan sanadkii bishii weeye $99 gaadhigaasan 6 bilood $99 laga cashur waa 114 shilin gaadhiga cashur isku bixina yaa kowde guryaha hantiilayaasha magaalada ku yaala ayaan cashur soo intahay dakhliga dawladda hoose iyo wasaaradda maaliyadda intaas uma soo xirtay dawladda nimanka soo xariistaan marka waxa la nimanka soo shaqo tagayeen markii horeba yaa taageer wal dambiilimada shido systemkiina ugu madariyay shuruuci kowde marka waxaan u sheegaynaa markii horeba faa'iido laan ugu qabindii guriga magaalada dhexdeeda ku jiraan oo $1,000 yaa application marka saa loo booqdaba waa lacag marka saa loo booqdaba kowde application qudhiis lacag waa liiga faa'iidayaan internetkiina ugu shubaan muxuu ahaayay waxaan ku biri baarkiina ugu shubaan waxa dhibtan ugu dhacayna ma daryeelaan taksiilayaal baan qaar baa xaasleeyay qaar baa kira ku jira qaar baa iyagoo xaasleeyay kira ku jira adana gaari kira wata inaad isku soo celcelis markaan maalintii 120 qof ku shaqeeyo $2 iyaga u dhigo 20 gaari kuma dhalo 20 wax ku cuno la xisaab ilaa baan ku dhaaray 5 litro 3 ku shubo 20 shilin basaaraya kii kirada kii lahaaba yaa biribaarkii $1 ugu shubo internetkii $1 ugu shubo 120 ku booqa run la sheegaynaa insha Allah waxaan ku dhamaa dhaweeyay waa anaga shirkadna ma aha bahal ma aha dhaweeyahan maqashay xafiisna ma aha nimanna ma aha nimanka application ma aha dhaweey waa tagaasidan Hargeysa iyo nimada Hargeysa anaga hawde marka ama dhaweeya anaga ahaande yaa ama waxaan ku lagu kala guuriyaa maanta aniga darwal ahaan waxaan ku jira waxaan ku wuri muddo hawde sanadkii saddexaad ay soo galayaan dhaweeyo ku jiro maalintii aan soo galaynaga waxay ugu yimaadeen afyare hawde nimankii shidaalka lagu siinaya kamid ahaa shidaalka lagu siinayay hawde maantana mar haddii la leeyahay ciidankii maanta waxa niyada ugu soo qofleen ninkii joog karayna joog ninkii tag karayna tag shirkadan dhaweeyay annaga la sumcada annaga halka soo gaarsiinay annaga islaama Hargeysa iskaxda u galnay islaanta waxaan baaq dadweyne oo shacab gaarsiinaya dhammaan cid ay khusayso sida wasaaradda tiknoolajiyadda wasaaradda arrimaha gudaha iyo laamaha ammaanka iyo wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda ganacsiga iyo cid kastoo mucaarad muxaafid wax ka qaban karta arrinkayga oo hoos u eegi karta magdhow anaga una siiyo dhaweeyo ma jirto oo xuquuqa oo anagu leenahay hadduu gaarigaygu naga jabo haddii gaarigayga wax ku yimaadaan oo haddii nala baadho haddii wax nagu dhacaan sidoo kale anaga caqabada aad u fara badan bay darawalladu ka cabanayaan halka lagu koobi jiray laakiin waxa kamid ah tusaale ahaan qofkii macmiilkaaga ku soo dalbaday customerka aad u shaqeynaysa wuxuu kooranayaa adoo 2 kilomitir 3 kilomitir soo dhaqaaqay waan ka maarmay waan ciyaarayay waan iska hadlayay wax noocaasa waana u tagtay marka wax aliyaalo wax xuquuqo dhaweeyay damaanadu kaaga qaadaya ma jirto already qofkii macaa xataa lacagta kala dagay kulu waan ku soo diray waan ka soo tabadiraya waxba kama qaban karo marka iska badaaba mid ku baadhayo mid ku la dhaciyo waxaasna iska badaa sharciga la tirsanaysaa hawsha raadsanaya marka taa magdhow dhaweeyo horta hadiiba meesha lacag timaado
annagu waxaan u baahnay magdhow dhaweey uu bixin doonaa meesha imanaysa uu damaanad uu qaadiyo xaq iyo xuquuq 3 sano iyo barka aanu ku jirnay uu bixin doono ayaa shirkadda dhaweeye annaga magaceeda halka gaarsiinay oo maqaamka sare oo shacabkii cid kasta barno magaca dhaweeye heerka gaarsiinay taxi ay leeyeen muu gaarsiin darawalada dhaweeye gaarsiiyay magaalada Hargeysa dhalinyarta waxay iskugu jiraan waayeel niman xaaslaya niman jaamacad iskaga bixiya niman Allahumma salli ala Muhammad agoom ku koriya niman taxi uu kara kuyay dhalinyartii wadanka mustaqbalkoodii la dhisay way marka waxaan leeyahay ka cambaaraynay halkan dhalinyartii dhamaa ee mustaqbalkooda la dhisayay bulshooyinka reer Soomaaliland maanta qof aan u taxi ka bixin gurigiisa ma jiro ama sarkaal ka ahaado ama wasiiraha ama xildhibaan ha ahaado magaaladu waa ganacsato qof aan taxi magaalada Hargeysa xaafad aan ka bixin ama way kareysataa oo lacagta loo saxray $8 iyo $7 ama way ku shaqeystaan oo dhalinyartooda ku shaqeystaa marka caqabadan qof kaliya ma haysato marka waaqacan jira maanta waxa ka dhawaajiyay lacagta habeen hore la soo rogay lacagaha ma awoodna sababtoo ah marka uu qofku gaaro 65 dakhligiisu 65 waxa automatic si hadda laga goosanaya adigoo ugu amrayo $1 oo gacanta daba lagu sarifo 6000 iyo 8600 oo shilin oo waxba laga weydiisan marka 130 dakhliga uu gaaro waxa automatic u go'aya $2 oo $1 oo kala ku shubanaysa waxa kaloo jirta marka dakhligaagu haddana gaaro 195 waxaad ku shubanaysaa $3 oo noqonaysa istabtii saddexaad ee ku shaqeysanaysay saxaafadda waxaan u sheegayaa kan uga gudbinaya inaanay 100 lacagtu hayn marka hore qorsho waxa iyagu oo targetkoodu ka dhigay in 100 ma aha waa dakhligaagu sida xogta lagu hayo muhiimka imka rasmiga si loo tijaabiyay 65 dakhligaagu markuu gaaro automatic waxa lagu shubanaysaa adoo saadaada maamulaya oo iyaguna la socdaan oo shirkadda Telesom fududeysay in aad ku shubato 860 oo shilin oo dhigan $1